waxaan rabnaa arday dhamaysatay qaybtii computerka guddoonsiino cadeymahoogii ama shahaadadoodii waxa ugu horeeya ardayga la yiraahdo Mukarram Ali Duwan Ismaan Ali waxaan anigu aan marqaati ka marka ardaydaas inay runtii macalinka wixii uu baray oo barashada maadada computerka ku saabsan in ay sidii la rabay uga soo baxeen fahamkooduna aad ugu sareeyo markooda waxaan aad u salaamayaa ardayda kooda luliyo macallimiinta iyo maamulka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabnaa arday dhamaysatay qaybtii computerka inaan guddoonsiino cadeymahoogii ama shahaadadoodii marka waxaan rabnaa inaan qaybta shahaadooyinka ardayda guddoonsiino ardaydaasi kulley waxay soo qaateen muddo 5 bilood ah waxay soo qaateenna uu ka muuqdaa oo waxa weeyaan iyagii baa dib u dhiga kumaan qasaarin waan mahad celinayaa ardaydaas qaybo ka mid ah hadda iyaga gacanta ku haya ardayda dambe oo computerkii dhiga run ahaantii waxaan oran karnaa waa dad dadaalkii la gashay soo ceshay macallinkuna wuxuu u baahan yahay markasta inuu arko ardayga wixii uu baray oo ka muuqda cilmi kasta oo ardaygu macallinku barayo haddii uu ardayga ka soo muuqdo macallinka waa u farxadda macallinka ugu weyn waa marka uu arko ardaygu wax barayay oo uu ka soo muuqato wixii uu baray anna waxaan ugu faraxsanahay ardayda computerka baraynay inay run ahaantii sidii aan u barnay iyo si ka sii fiican ay u soo muujiyeen waad mahadsantihiin baan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo uu sheegay ustaad Jamaal ardada halkan waxay ku barteen Microsoft Office 5 book oo Microsoft Office ah oo ugu horeeya buugga la yiraahdo MS Word ama Microsoft Word oo runtii ah buug lagu barto in lagu diyaariyo qoraalada ama dokumentiyo kala duwan oo aad u bilicsan sidoo kale inta waxa loo yaqaano Microsoft Excel waa barnaamij xisaabeed asaga oo program loogu talagalay xisaabinta waxyaabaha kala duwan hadii aan leeyahay xisaabaha ganacsiga hadii aan leeyahay xisaabaadka dhibcaha waxbarashada iyo waxyaabo kale oo inta ka sii balaaran ayaa loogu talagalay marka in lagu diyaariyo Microsoft Excel-ka runtii ardada sidoo kale waxyaabaha ay barteen kamid ah buugga Microsoft PowerPoint asaga PowerPoint-ga presentation-nada iyo in wax lagu soo bandhigo oo muxuu ahaa wax lagu soo jeediyo ayaa inta badan loo isticmaalaa diyaarinta iyo muxuu ahaa programyada xafladaha ama muxuu ahaa casharada oo kale in lagu bixiyo ayaa inta badan loo isticmaalaa iyo labada buug oo kaleento waxaan anigu aan marqaati ka marka ardaydaas inay runtii macalinka wixii uu baray oo barashada maadada computerka ku saabsan in ay sidii la rabay uga soo baxeen fahamkooduna aad ugu sareeyo hadda kadibna ay si isticmaali karaan intii laga baray maadada computerka insha Allah maanta waxaan guddoonsiinaynaa haduu Ilaahay yiraahdo shahaadooyinkoodii ayaa guddoonsiinaynaa ayagana waxa laga rabaa wixii ay barteen inay meesha uga tagin oo ay practicing ku sameeyaan oo ay isticmaalaan oo ay computer soo iibsadaan computerada sanadkan qaali ma aha mobilka aad wadatid iyo computerka mobilka qaalisan ama waa isku qiimo ina marka computer soo iibsatid ina casharada ku diyaarsatid ina imtixaanada ku diyaarsatid keed ayuu ku noqonayaa oo sida mobilka kaleento xagga cilada markii la yiraahdo ka cilad yar yahay keedka markii la yiraahdana uu kaga fiican yahay wax keedinta marka wuxuu ku noqonayaa keed inaad casharadaada iyo waxyaabaha kala duwan ee muhiimka ku ah aad ku keedsatid marka inaad isticmaashaan oo in kaga harin maanta waa bartay waana iska dhaafay farsamo waa fara ku hayn marka insha Allah waxaan rajeynayaa
inaad muxuu ahaa dadkana bartaan adinkana aad isticmaashaan wixii aad barateen intaas ku soo gaabinayaa waxa ugu horeeya ardayga la yiraahdo Mukarram Ali ardayga ku xiga Hassan Abdullahi Hassan Bila Hassan Saeed Said Dahir Ali نجم جامع فاطمة محمد علي دوان عثمان علي